in reer wanaagsan oo islaamiya la dhisto walaalayaal arrintaas aad ay muhiim u tahay dadka qaarkoodna way ka gaabiyaan waxaan rabaa caawa inaan si kooban u dul maro qiimaha arrintaas ay leedahay waxaad ogtihiin alla inuu guurka uu ku daray aayadihiisa waaweyn ee kowniga ah qaala allahu tacaala ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون آياتها إلهي واوين تصنع وحدانيديسا هي حقنمديسا هي عظمديسا وحاكم ذا إن أو نفتنا أنه أبور حاس هذا ما حوال أبوري سيدي بين قبله حوال أجوغان ويلش آدم من أجوغان إن إسكول سلام بمرك الأغير يا سي إلهي رهالك يا سبحانه وتعالى آياتها إلهي بأرنتاس كمتها ددك في الفكرايا oo wanaag raadinaya ayaana garan kara arintaas hadaba walaalayaal guurku aad buu u qiimo badan yahay ummadan maxamediyadana waxyaaba ilaahay karaamay ayuu kamid yahay ilaahay fadligiisuna kamid yahay waxa la doonayaa in lagu dadaalo maxaa yeelay laba faa'iido oo waaweyn buu leeyahay guurku faa'iidada koobaad waxa waaye guri islaamiya in adduunyada ku dhistid ajir badan iyo khayr badan iyo awlaad saalixiina iyo sharafkaaga iyo magacaaga oo sii jira oo nasligaaga iyo tarankaaga uu sii jiro oo biri aakhira mugad aad ilmahaaga ku soo duceeyaan wax ku soo sadaqayaan waa keenaysa waa koow midda labaad ilmahaas la dhalaayo ee la tarbiyeenaayo ee lagu sabraayo aakhiro sida ajir adduunyada looga helayo ayaa aakhirna fadli badan ugu gaaraya oo ilaahay raali uu ka yahay subxaanahu wa tacaala sida daraadeed in guryaha la dhiso guryuhuna ay islaami ahaadaan ayaa la doonayaa waxaana aasaas u ah wiilkana akhlaaqda iyo diinta lagu doorto gabadhana akhlaaqda iyo diinkeeda lagu doorto